بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذه أدبان هذا بهذا الصحافة حين يسوون نمد إعلامنتا مالنتا جوشا عيدا كإسسي خاتمه وأهمال وين شن يلا باتن كوغس وأهمال بلشدن كوين مالن عيدنا مدنا إن عيدا كن الحسه لون مهد عريو جيسياشا مامولكا إسسي خاتمه يورالها هرتي إعلامين تما مالن كاس هي إنه يسوون نمد حاجر الضد أركتيه فاسد الجريه سوقه ويوم التحرير كدقي أرنجا وحكي شيران متشيران أساس كأساسي مالين بيلا يدهي مالين كان مالين عيدا وين إن الله حصو عيدا كه لو مهد عريو جوشو دي لوجا مهد عريو حق بيقوليهين وانا سينينا وانا كحق سينينا بلشوا انترير أساسي خاتمه يورالها هرتي inta waa ugu bishaaraynayna waana ugu hambalyeynayna soo aadanaanta maalinkaasi soo aaday waxaan ugu baaqaynaa qurba joogta iyo bulshooyinka reer SSC Khaatumo in loo diyaar garoobo daandaansi iyo isyeelyeelka maamulka goosatada ah ka wado deegaanada ay marayaan socdaalka ku marayaan caynaba iyo meelaha u dhow in dagaal loo diyaar garoobo in ciidanka taakuladiisi la xoojiyo inuu noqdo maalinkaasi maalin ciidanka la isku garab taago inuu noqdo ayaanu ku baaqaynaa waxaanu ku baaqaynaa qurba joogta maamulka SSC Khaatumo ihtifaalaadka iyo xafladaha ay dhigayaan inay noqdaan xaflado lagu garab istaago ciidanka SSC Khaatumo oo mudan isgarab taag iyo mahad celin mudan inay arrinka u sameeyaan waxa muuqanaysay oo ayaamahan oo dhan muuqanaysay dhaqdhaqaaq ka soo cusboonaaday dad xunkii ahaa ee halkan laga eriyay dhaqdhaqaaq ka soo cusboonaaday inta aanan cid kale u gudbin dad baa jira deris inala dadkaas maamulka SSC Khaatumo isimadooda dhaqanku nabadgeliyay ugu baaqeen in badan maamulka SSC na nabadgeliyo ugu baaqay waxaan ugu celinaynaa cid dambe oo loo oranayo nabadgelyo loogu baaqayo ama loo oranayo dagaal ha gelin ma jirto waxaan u sheegaynaa shalay wixii dhacay inay tahay wax ay wax ka baran karaan kooda dhinta in laga soo cararo haada looga cararo kooda dhaawacmaana uu daryeel xumo u dhinto kooda la qabtana aan dib laysu weydiin 500 nin baanu gacanta ku haynaa laba caliis ma weydiin waa ognahay hooyooyinka Hargeysa iyo Burco ka barooranaya ee dhashoodii iyo ubadkoodii iyo raggoodii halkan ku xiran yihiin dani hadday idin ku jirta dagaalkana rag kale ka soo daba dira haddaanay idin ku jirinna digniin idin dul saaran weey cid loo oranayo dagaalka soo galin ma jirto balse baastoolad hadday xaggan u soo dhacdo abshiru bima kuntum tu'adun qodobkaasi waa qodobka inta raaca waxa weey nuux taani baan maqlayo hadlaya bini aadanku hadalku inuu wax ugu qiimeysan yahay waa wanaagsan halkaas uu ka hadlay 23kii isagoo maleeshiyaad hor jooga wuxuu yiri sababtaada iyo taydu waa hadba waa tii raawis noqota
bal intaadan wax kale noo sheegin bal seeftaadii halkay ku dambeysay horta dadka uga warbixi wuxuu hadalka ku daray og iyo ilaa tukaraq 26 sano loo soo socday oo maalin bayn la soconay muddadii aad nuuxow masaafadii aad 26 sano u soo socotay xusid waxa mudan inaad hal saac kaga baxday oo 26 sano intaad u soo socotay aad hal saac ku jirtay nin baa laga sheegay wuxuu yiri hadii la idin dilo saudinkan diiri jirin maaha ma dawaacabteen saudinkii dabacsanaa maaha maxaa soo kordhay oo isbedelay miyaydan ahayn raggii shalay rag iyo dab waxa aad gacanta ku haysay annaga gacanta ku hayna waxa maanta isbedelay bulshada aad khaldaysaan ee aragtidooda ku ciyaaraysaan ee cuquushooda aad caayaysaan waa idin weydiin doonaan baan u malaynaya inta waxa raaca hadalkii Muuse ee cilaaminta dagaalka ahaa Muuse lama yaabanin waa ognahay wuxuu dabkan soo geliyaa dadaan u malaynaya in la soo kireysto ayaa dabkan la soo geliyaa dad maanta la qabto ama la dilo loo ooyo oo kaliya laakiin aan loo talin inta ay nool yihiin Muuse lama yaabno waa ogna oo waa nin dhiig ku koray laakiin waxa la yaabanahay dadkoodu sida raqiiska u yahay ee buushaha ah ee lagu soo shubay cadaabaha lagu soo shubay wuxuu yiri nawaaxiga Hargeysa dagaal ugu nayaadayso nimcadii Ilaahay markuu nooc walba u dhiibay atii nusqaan looga dhigay neebi dirireed antana wixii nooli waa naafa iyo cayd anigana fardin noogay waa naaxayaan guga haddii aad dagaalnaa washaad naarki doontaa waxaan u malaynayaa shalay isimada halkaa is hortaagay oo ciidamadii celiyo joojiyo yiri halkaa la dhaafi maayo waxaanu ballan ku qaadaynaa baastooladi hadday u soo dhacdo xagga iyaga in burco mooska celin doono in buudka la iskula tuman doono in nin waliba halkuu ahaan jiray ahaan doono ciidan dambe la joojinayaan jiraynin sidii wanaagsanaydaan u dhaqannay baan jiraynoo dambe in loo dhaqmo haddii aan adiyadda iyo farafaraynta jiidaha la joojin aad iyo aad baad u mahadsantihiin